بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal waxaan jeclahay inaan ku salaamo salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaas kadib waxaan jeclahay maanta inaan la wadaago mas'alo yar oo aan ka akhriyay buug la yiraahdo Why Nations Fail Power Prosperity and Poverty waa buug ka sheekeynaya dalalka ama wadamada sababaha ay u burburaan sababaha ay u fashilmaan buugaas laba nin ayaa qoray oo qoraa ah oo badanaa ka sheekeeya arrimaha politicska iyo social science-ga buugaas wuxuu ka sheekeynayaa mas'alo la yiraahdo political centralization oo xaqiiqdii aniga aad ii soo jiitay mas'aladaas waxay ku saabsan tahay dadku haddii ay rabaan inay hormaraan ama hore u socdaan waxa looga baahan yahay taladooda inay mideeyaan waxa looga baahan yahay taladooda meel dhexe inay keenaan waxa looga baahan yahay taladooda in ay mataqaanaa dad u dhiibtaan soo koobaan meel dhexana ay keenaan political centralization ayaa la yiraahdaa marka taariikhda dalalka hormaray oo dhan qowmiyadihii hormaray oo dhan xadaarooyinkii hormaray oo dhan dhammaantood waxay sameyn jireen political centralization taladooda dad ay u dhiiban jireen qaab direct ah oo democratic ah oo qofka la dooranayo oo mataqaanaa cad qaabkaasna waa loogu dhiiban jiray iyo qaab sidoo kale waxa waa indirect ah oo dadku iyagu inay la wareegaan talada oo kadibna dadku ay ku daba saftaan marka arinkaas in la helo waa muhiim marka mas'aladan waxay u fiican tahay qof walba oo ku jira arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha maamulka iyo maareynta mar walba oo mataqaanaa la rabo dadka in la hormariyo waa in taladooda la mideeyo talada hadday kala baahdo oo qofba dhinac u socdo oo qofba wixiisa jeebku kala soo baxo oo dadku aysan ismaqleynin markaas qowmiyadaas ama dalkaas ama mataqaanaa qabiilkaas ama bulshadaas waxa weeye fashil ayaa la soo darsay marka political centralization waa arin aan u baahanahay inaan ka fakarno xaqiiqdii qof walba oo maanta hogaamiye ama leader ahna uu ka fakaro insha Allah taala intaas ayaan maanta idin wadaagayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh